على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeysa aad baan u salaamayaa saxaafadda Somaliland noocyada kala duwan ee saaka halkan joogta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta arrinka aan ka hadlayo halkan aan isugu keenay waxa weeye sida aynu ka wada warqabno dhacdadii naxdinta iyo murugada lahayd ee ka dhacday degmada Ceel Afweyn oo dhimasho iyo dhaawac fara badan labadaba sababtay. horena waa looga hadlay, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu ka hadlay, madax kale oo qarankii way ka hadashay, dad fara badan oo dadkii waayeelka ahaa ee reer Somalilandna way ka hadleen. marka ugu horeysa dhacdadaas waxaan tacsi guud aan uga dirayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii dadkii dhacdada ku geeriyooday ee waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo, ehelkii ay ka geeriyoodana Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, inta dhaawacana Ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah oo siiyo. arrinta dhacdada ah ma aha markii ugu horeysay ee deegaankaas degmada Ceel Afweyn labada qoys ee walaalaha ah ee isku deegaanka ah ee dhaleeyada ah markii ugu horeysay ay ka dhacday maaha, way soo noqnoqotay dhacdadaas. haddii ay soo noqnoqotay tii maalintii dhaweyta ka dhacdeena waxay ahayd dhacdadii ugu cuslayd oo murugo aad iyo aad u ballaaran xambaarsan ayaa ka dhacday. xilliyo hore waa la isugu tegay, hadday xukuumadda Somaliland tahay, hadday golaha guurtiga tahay, haddii golaha wasiirada tahay, haddii salaadiin iyo waayeel fara badan oo gobolada dalka ka tegay ay tahay, waa la isugu tegay. culays xoog labaa la saaray. deegaamo fara badan oo maxaan ku dhahday ay saameynaysay arrintaasi waxay kaliftay si nabad loo helo in deegaamadaas oo dhan dhulkii la degaameeyey siday u dhantahay la burburiyo. lama filaynin maanta runtii lama filaynin in dhacdada ay dib u soo noqoto, weliba inay ku soo noqoto khasaare intan laagna wax bini aadmigu uu filayay ma ay ahayn. waxaan leenahay ku wargelinayaa deegaanka labada dhinacba lagama maarmaan waxa ah nolosha bini aadmigana khasab waxa inagu wada ah in shaqaaqadani ay halkaa ku ekaato oo aan colaad dambe oo sababta dhimasho iyo dhaawac dambe inaan la samayn. waayo maxaan ku dhahday waa dhaawacaad u fara weyn weeye, waa dhimasho badan, waa dhaawac fara badan, waa tiro 50 wax yar ka yar ayaa dhaawac iyo dhimasho ah. caqli maaha, macquulna maaha. dareenka bini aadmiguna siduu u dhanyahay waa wada diidaya. haddii maanta la yidhaahdo maxay ku dhinteen dadkaasi, tirada intaa leegna maxay ku dhaawacantay, cid Ilaahay abuurtay oo sababeynaysaa ma jirto. waayo marka ay wax dhacayaan waa inay sababaheeda la qaataa. taasi waxay tusaysaa oo ay maxaan ku dhahdaye ay gidigan inoo wada cadaynaysaa inaanay ku dhicin caqli saliima, inaanay ku dhicin. lama odhan karayo dadkii deegaankaas labadaa beelood oo laba beelood oo waaweyn ah oo sida ay dhaleeyada u yihiin iyo sida ay xididka u yihiin iyo sida ay u wada degan yihiin waxay ila tahay inaanay jirin
Somaliland laba qoys oo sida u wada degan waxaan u maleynayaa Soomaaliyadii horena laga heli maayo loo oran kari maayo markaa dadkii waayeelka lahaa iyo dadkii caqliga lahaa intay fadhiisteen oo taliyeen ayay sidaa go'aan ku gaadheen laakiin waxa cad dadkii nabadda jeclaa iyo dadkii waayeelka ahaa iyo dadkii waxgaradka ahaa inay ka xoog roonaadeen dadkii balaayo abuurka ah oo dabadeedna ay arrintan colaadan sidan u abaabuleen maantana ay halkaa taagan tahay labada dhinacba waxaan ugu baaqayaa in la joojiyo colaada in dadka dhibta laga daayo meesha lagu dagaalamayaa waa meelihii abaartii ugu adkeyd ay ku dhacday waa meelihii hodanka weyn ku ahaa xoolaha nool waa meelihii khasaaraha faraha badan leh xooluhu ay ku gaadheen haraagii iyo baaqigii ka soo sabata baxay abaartii imika dhowrka sanadoodina haysay baa maantana colaadan la dhex dhigay taa waxaan leenahay arrinkaa ha la joojiyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa in dadka odayaasha ah dadka waayeelka ah dadka waxgaradka ah inay la shaqeeyaan in tallaabooyinka lagu xasilinayo maxaan ku dhahdaye nabadgelyada labada dhinac ka socota ciidamadii qaranka waa la geeyey way joogaan madaxweyne ku-xigeenka saaka wuxuu joogaa eriyadu joogaa culays xoog leh ayaa go-aan la gaadhay xukuumadda in culays la saaray arrinta nabadgelyada waxaan jecelahay markaa oo aan ugu baaqaynaa in gacan laga siiyo maamulka gobolka degmada ciidamada qaranka ee ilaa caasimadda Hargeysa laga diray ee ciidanka booliiska iyo ciidanka qaranka labadaba ah ee nabadgelyada ka shaqeynaya waxaan jecelahay dadka odayaashiina inay gacan ka siiyaan lagama maarmaan waxa ah in nabadgelyada la xasiliyo lagama maarmaan waxa ah in aan khasaaraha intaa ka badan aan loo dul qaadanin in khasaaro dambe maxaan ku dhahdaye uu dhaco lagama maarmaan waxa ah in dadka nabadgelyada dhaawacaya in tallaabo laga qaado marka waxaan leenahay walaalayaal saaxiibayaal ilmaadeerayaal maanta inagamay go'in in khasaaro intaa leeg uu dhaco in cadaawadu sii korodho in isnacaybku sii kordho in caruurta iyo haweenka iyo waa dhalinyarada lagu ababiyo maxaan ku dhahdaye isnacayb waayo ilaa iyo inta adduunyadan laga rogayo oo yoomal qiyaamahu intuu dhacayo labadaa beelood halkaasunbay deganaanayaan nolol maalmeedkooduna sidaasunbay isugu xidhnaanayaan dhul daaqsimeedkooduna sidaasunbay u wada joogayaan ceelka ay ka wada cabaana sidaasunbay uga wada cabayaan Somalilandna ma awoodi karno inaynu labadaba intaynu meesha ka rarno inaynu midna geyno meel 2,000 kilomitir ama 1,000 kilomitir isu jirta inaynu kala geyno ma kari karno marka waxa lagama maarmaana garaad cabdiqani wuxuu yidhi Allah yarxama berigii shirkii Boorama wuxuu yidhi deegaanka iyo jaarnimadu bini aadmiga nolol maalmeedkooda isagu xirsan labadan nin ee wada degan labada qoys ee wada degan ee nolol maalmeedkoodu isku xidhan yahay waxa iska xigaan mid waliba mid uu la qabiil yahay oo laga yaabo inuu 500 kilomitir 700 kilomitir ay isu jiraan marka waxaan leenahay mar haddii noloshiina bini aadmigu xagga ilaahay ay iskaga xidhanteen waxaa loo baahan yahay in aan bini aadmigu intaa ka badan dhaawac loo geysan waxaan jecelahay markaa bacdamaa dhacdadaasi ay soo noqnoqotay bacdamaa khasaare fara badan oo hore uu jiray
بعدما كمان تدعينا وانتي هرودن اسكيغا خسارة بدايقني خاصة بحاي نقوة إن أرنت نبتقلية ده لحسلية أو طلابات لغا قادو marka waxaan leenahay gacan hal la siiyo ciidamada qaranka ee imika nabad ilaalinta halka u jooga talaabooyinka ay qaadayaan gacan hal lagu siiyo dadkana hal laga daayo dhibta inta ka badan ma qaadi karaan maatadeena iyo caruurteena hal laga daayo waxaan ku dhahdayay dhibaatada iyo khasaaraha iyo isnaacibka aad iyo aad baa mahadsantiin